la joojiyo waay oo walaalkaaga xasiska laga joojiyo waay oo walaalka dhibka laga joojiyo waay so waxyaalaha fudud waxyaalaha culus amar walba ka adag marka raalli ahaada culimmada meesha ku jirtay heestii waan dumiyey muhiimkada intaasay ahayd hadday garashadaadii gaabisoo sidaan tahay xilma gudan karayside guurkaba iska iloow yah hadday garashadaadii gaabisay oo sidaan tahay yah walaa cajaab walaani mirahan waa ka qayliyey heestaa miraheeda waa ka guguula la dhahaa soo dhegaysta guguule yah guguula la dhahaa wallaahi cajaayib bees cajaayib waa waxay ka hadlaysaa inaadan waxba ado awood aada u lahayn oo wixii alle kuu qadaray kugu dhacayaan at the same time haddana waxay ka hadlaysaa qof xun inuusan wanaag lahayn ama rag ha ahaada ama dumar ha ahaadee qof xun leh waayo ya geed qodax leh koris ma leh beet wuu ku mudayaa ya gaaxsi dhagaxa dixda meel dadka xilkuraadka ka saaya ma lahan guuguule wehel male galad iyo ayaan ma leh u dhimasho ma leh qof doqona dadaal ma leh qof aan caqligiisu fiicnayn qof loo dhinta ma ahan annagana meel baan isaga dhimana ilaa waxaan nahay dahab wax la soo baxa waaye jaayibaad soo dhawaada walaalihii qiiman qayaro maanta waa maalintii dumarka focuskaygu waa dumarka ayaan maanta ku dheganaa thanks so much walaashaysu maanta dumarka ayay saaran tahay waa sideenii oo kaleeto wasla talinaynaa soo dhawa walaashay maan waa sideeni hawlaheenni walaalihii maan soo dhawaada waan wada tashanaynaa wasla talinaynaa xumaanta waan reebayaa aniga sideedaba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu igu galaday oo aan qaas gaar u leeyahay ayaa jira oo ah inaan xaqa ka cabsan xaq ma ka cabsanayo because khayru khalqillah ayaa yiri ulul xaq ولو كان مرة waxaa xaqaa sheeg waxba kharaar badnaadeena hooyadii iyo aabahay xaq ugama baqayo aniga waan sheeg waxaan aqladaan dhahayaa waa qaab ilaahay ii sameeyey oo jirkayga waaye laba qof oo qaldanaayo aabahay allaha maaragta ilaahay subxaana watacaala waa nool yahay caafimaad sareeca allaha noo siiyo allaha maaragtay noo maaragtay ayaa ka hadlay arrintaas wuxuu yidhi haddii laba dhurwaa oo isku dheganaan arko waxa ay qabatuu dhahay inaan kan gardaran ku boodo dilo marka gardara hiil ma leh walaalahayga qaaliga ahoon jeclahayo rabaa mugdi iga noqday soo mugdi ayaa saasaan dhahan waa sii mugdi hooyo iyo beybida ayaa qolkan jiifa qolkan waxaa jiifta maliya iyo hooyo labaduba way jiifaan marka alxamdulilah soo dhawaada maanta foxkeenna maxaa foonkayga ka qaldan mise anaa u malayn wax ka qaldan yihiin waxbaa ka qaldan I don't know we'll see insha allah later mugdi joogtay aad moodaa walaalahayga maanta qiimiga qaayaha laho waxaan maanta u farfadhino insha allah waa dumarka xaaladda dumarka ayaan galaynaa xaaladda dumarka ayay ka shidan tahay maanta xaaladda dumarkaan galaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay dambigayga ha dhaafo ilaahay subxaana watacaala afkeena wax khayr leh ma wax shar laba alla kama keeno sharba alla nooma keeno ilaahu subxaana watacaala cabarka adagaa xukumine shar wixii anaga hay khayrkana ilaahu noo badi marka insha allahu tacaala asxaabtada qiimaha ee qaayaha lahow maalinta dumarka hayaay waa maalinta dumarka soo dhawaado war foonkayga waxa ka qaldamay yaa ii sheegi kara waxa uu la madoobaaday yaa ka sheekeyn kara
yeah. Anyway, I don't know how to do that. Ooh, so bright. qoraxda labada damiga siinaysa uma jeedi karayo markaan inay iftiin tahay badanaan wax u jeedi karin. I don't know somehow. waxbaa qaldan. iftiinkaygaa wax ka qaldameen iga raalli ahaada. saxaabteyday raalli ahaada. waxbaa iga qaldamay ma garanayo wixii. Okay, what's ka bilaabanaya? Well, because I don't know mugdi baan si u galay. waa keeni la ahay iftiinka meel uu iga qaldan yahay waa garan la ahay. Bad meesha insha Allah taala. Umay maqlaysaan saxaabay. mugdina waan galay iftiinkayga see waa fiksin garan la ahay. Yeah. Soo dhawaada. mugdi baa ku jira. I don't know why ay mugdi aan ugu jiro. haddana codkayga ma aqaana ay maqlaysaan inay ii jeedaan ma garan karo. So waa idinkaasa. maanta waxaan dul taaganahay waxaa waaye guulo wehel ma leh garasho iyo dhaqaale ma leh ayaan dul taaganahay. xagga dumarka ayaan taaganahay. shalay xagga raggaan taagnayn maanta xagga dumarkaan taaganahay. soo dhawaada. waxaan maanta walaalahayga qiimihii qaayaha loo ma rabo inaan waqtigaas idinku sii dheereeyo. yacbaa dhanaan ku jiray mugdigaana waa fiksad garayn waayey. I don't know qaabkaan u fiksad garayn karo sida ay tahay waa fahmi waayey. si wanaag ka anyway maanta waa maalin dumarka soo sii sheergareeyay sida wiilashu sheegay. dadku way sii daadanayaan way soo daadanayaan way sii daadanayaan way soo daadanayaan laakiin muhiimkii wuxuu yahay inaan ani messagekan gudbiyo. inta afar la egtihiin messagekan intuu isaga jiraa qofkii raba halkaan ka dhageysan doonaa. muhiim ima ahan. waxaa muhiim ii ah in walaal oo nadiif u dhagteyda waxaan ka sheegaya maqla aan arko ayaa muhiim ah. soo dhawaada. marka aniga soo galayana gays ogaada aniga qof inaan caayo uma soo galo inaan dad dhibaatay uma soo galo inaan wax saxo oo walaal aan maartay hadalkaan hadlay laga yaabo maalin inuu qanfaco ayaan u soo galaa. marka insha Allah don't put me wrong. insha Allah waxaan rajeynayaa inay maqlaysaan si fiican ii maqlaysaan. haddiina ii maqlayn walaalay kuwa maqlayna ii soo qoro insha Allah. aniga indhaha waxaa iga qabtay geedkan. geedii socodkii aan waday ilaahay bay ka tahay maanta waxbaa qaldan mana hagaajin karo. marka walaalay soo dhawaada. iska dhaafa maanta sideedaan iska wadanayaa inaan ka baxo ma doonayo haddaan ka baxo dadkayga si kala dhumayaan. maanta waxaa ii fog saaran waa dumarka walaalahayga qaylilahow inaan issaxna ayaan sidaan u sheegay intuu soo galay. waxyaalaha dhaliilka oo anaga dumar ahaan leenahay. shalay waxaan ka hadlay ragga walaalaha ragga iyo dhaliilaha iyo waxyaalaha aan rabay inaan maaragtay u soo jeediyey inay iska saxaan hadduu ilaahay yiraahdo maaragtay si aysan ilmahooda uga dhuminin. maantana waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhaliilaha aan leenahay iyo haddaan iska sixi karno siday ilmuhu noogu badbaadaan. marka aad iyo aad Allah idin sharfo. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ii soo noqotaan ama aad maaragtay aad waxba akhfoonkii ka qaldaday maqlaysaan oo ku maqlayna ay soo dhahdaan. soona dhawaataan kulligiina meel kasta oo dunida daafeeda dacalada aad ka joogtaan. siina sheergaysaan si walaalo kaleeta ay u maqlaan. intaas ayaa ii muhiima. muhiimadda maaragtay 1000 people inay fiirsadaan ma ahan. muhiimadda waxay tahay message-ka ee qof walaalo wanaagsan. always say that always qof wadna weyn ayaa maqla. qof walaalnimada jecel ayaa maqla. qof wanaaga Soomaalinimada jecel ayaa maqla. qofka badan muuse kalmadeeda maqla qof kasta ma ahan. waa qof wanaagsan ayaa ma sha Allah taala ani ii soo gala. waayo aniga waxaan ka hadlaa wanaag
qoyska arrimaha qoyska iyo caruurtan ka hadlaa waxaan aad u keergareeyaa ilmaha yararka iyo hooyooyinka iyo dadka victims laga sii dhigayo iyo dulmiga lagu sii kubcinayo marka dulmiga ilaahay ma ogola inaan dulmiga la isku sii marka inaan wixii aan iska reebi karna iska reebno wixii aan isfari karna isfarno ayaa inoo muhiim ah marka insha allahu tacaala walaalayaal macaan soo dhawaada saara bay macaan waa ku salaamay saarada waa ku salaamay macaan soo dhawaada gabdhoodkayga lacag maartay waa dadka waa kala daadanayaan daqiiqada laakiin insha allahu tacaala waa isku soo noqon doontaan marka muhiimku wuxuu yahay inaan dadka ay soo baxdaan soo noqda imaada dhegeysta 5 minutes and you good to go maanta waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd guguule galladii wayaan male guguule wehel ma leh gallad iyo ayaan ma leh sheekada halkaas u socotaa fahamtay guguule wehel ma leh gallad iyo ayaan ma leh marka maxaa kula gudboon sister adiga sister maxaa kula gudboon dadka adduunka ragga adduunka jooga ma bilaabaya ragga Soomaaliyeed ee mujtamaca jooga 80% waa wada guguulayaal 80 guguule adi maxaa kula gudboon adiga waxa kula gudboon ayaa laga rabaa inaad ka fikirtid okay maanta ka sandul saarana sidee haddii ilaahay uu guguule kugu soo hagaajiyo aad ilmaha u safe karaynaysaa maxaa kula gudboon amaanta dul taaganahay walaahi qiimaha qayaalo soo dhawaada again soo dhawaada maanta to waqtigan si dheereeya ma raba raalli ahaada lambarka ayaa aad iigu yar waxaan soo celina waxay dadku yaryihiin because ma share gareynaysiin haddaa share gareyn lahayd dadku way soo gali lahaa markii soo galaan sheeko iska gabagabeyn lahaa waa ka bixi lahaa idinkana waxaan rabo way idin sheegi lahaa laakiin waxaa yar dhaqdhaqaaqa lambarkayga aad buu yaryahay energy iyo waqti iyo saacadna waxbaa soo gashay marka waxaan doonayaa walaalaha inaad maqashaan insha allahu tacaala ee aad ii sii gudbisaan because waxaan isleeyahay waxaan aad sheegaysid walaal ayay wax tari doonaan okay soo dhawaada marka maantay waxaan dul taaganahay dumarka waxaanan ka hadlaynaa guguule wehel ma leh gallad iyo ayaan ma leh ayaan ka hadlaynaa guguule wehel ma leh gallad iyo ayaan ma leh ee gurigaaga iyo ilmahaaga maxaan ku samaynaynaa ayaan ka hadlaynaa gabadha xunse ayada maxaa wiilka fiican kala gudboona waan ka hadlaynaa maanta wiilka fiican oo boqortooyada ah oo Soomaaliyeed oo Ilaahay sharfay iyo gabadha xunna sidee bay ma jirtaa hadday jirto maxaa dhibaato dhaca maxaa ayadana waa ka hadli doonaa
guguulaha iyo gabadha wanaagsan waa ka hadli doonaa soo hal meel kaliya ma saarin annagu haddaan nahay shaqo badan oo isku mid aan qabanaa sida ragga kale hal shaqo ma qabanayno soo dhawaada qama qaylo maxaan ku bilaabaa guguulaha maya gabadha xun aan ku bilaabaynaa gabadha xun ayaan ku bilaabaynaa shalay waxaan joognay gabadhii u soo noqonaynaa guguulaha u soo noqonaynaa waxaan shalay joognay wiilka walaalkaa inaan dhahaynay ilmaha iska dayaci hana xumaynin hooyada ilmaha kugu dhashay intayna shalay igula jirtay way la socdeen ya xun nin wanaagsan nin raagama xume iyo caruurtiisa hooyadood aan joogna shalay waa nin raagama xume iyo caruurtiisa hooyadood nin raagama xume iyo xubbii u daraad lahaa gabarashada baby love dhahay ma xumeeyo markay kala tagaan wuxuu dhahay xalaal caleyk calaf waa dhammaada amar waa dhacaa ulna waa jabtaa amar waa dhacaa ulna waa jabtaa u dhahaa gabadhiisa ilmuhu la korsadaa wanaagu la agtaagnaadaa intuu hagaaji karo hagaajiyaa waa ninka gabar normal oo aan guguulo ahayn kusoo aado laakiin kama aan hadlin shalan waxaan dhahay guguulaha gabadha ah oo xun ninka ay kusoo aado beri waan ka hadli doonaa markaan jaanis helo ilaahay ayaa mahad ii siiyey maanta inaan jaanis soo helay so waxaan rabay inaan wiilasha kaliya aynan arkin inaan saaranahay ee gabdhahana aan u cadaaladsan u furo soomaaliya waan sognaha anaga haddaan gabdhow waan sognaha anaga dhegeyna fay especially qurbaha horta wadankii gabdhaha jooga inta badan dhaqanka bay xeeriyaan tol bay haystaan walaalay haystaan hooyaha joogta ayeeyaa joogta abshaxan iyo abuulan baa la arkaa inuu joogo darisaa jooga haddii wiilkii gabdho kala tagaan inta badan dhaqamiyan aniga koley ma arki jirin hadda adinka aragteen waa gooni gabar dhahaysa war ilmahayga ma arki kartid indhahaas ma saari kartid gabar dhahaysa oo aabe iyo ilmihiis kala goynaysa ani ma arkin Soomaaliya because inta badan ba gabadhu aabaha way u baahnayd markii ilmo aabaha u baahan yahay dhaqankeena aha aabaha u baahan yihiin meel kasta ugu baahan yahay laakiin Soomaaliya financial inta badan ugu baahan yihiin dhaqankiiba ameecho marka inta badan gabdhuhu Soomaaliya wiilasha ani ma arkinin naagdaysa ilmahayga ma arki kartid waa aragnay aaba xun oo hooyada ilmaha ka qaatay laakiin aniga ma arkin barin ahaantayda hooyadaysa ma arki kartid mana u malaynay ability noocaas oo fara badan inay hooyooyinka Soomaaliya jooga ay qabi jireen laakiin hooyada qurbaha timid alla qurba hooyada timid ku guguulayaasha aqligooda ugu guulaha dhaafinin maaragtay wax been iska dhaadhacsiya ada awood Allah iskale irkaad qaban kartaa kanaad yeeli kartaa ay iska dhaadhacsiya inta badan yes waxyaala xaq u leedahay jira haddii lagu soo xidboodana xaq ku heli kartaa jira waxyaala badan oo seefso ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo galdo wadanka noo yaala jira laakiin daad means ma ahan inay sharcigu adiga ku jecel yahay adiga kaliya ku jecel yahay ma ahan so waxaa la arkay gabdho badan oo dulmi galay oo aabayaasha ilmihii ka jaray oo hebel ilmaha ma arki karo intaas uma soo dhawaan karo iyadoon wax riisana jirin hadalka maqlayaa isfahano halo Soomaali isfahano wax riisana ayadoosan jirin for example dhibaato safety-ga horta ana always waxaan dhahaa safety-ga haddii aysan safety jirin safety issue hadduusan jirin oo aan safety-ga ilmaha aysan meesha aysan oolin oo aan dowladda ka cabsanaynin because ways ognaha anaga dhan dowladda safety issue hadduu yimaado wadan dowladna oo Yurub Mareykan aad joogtid waxaad ku khasban tahay guideline-ka wadanka u yaal inaad raacdid daada raacinin waxaa dhici karta in iyada dhibaato kaa soo gaadho so xagga waa rule sharciga wadanka aad ku nooshahay degsaday waa inaad raacdaa mar walba gabdhaha saasan ku yiraahdaa sharciga wadanka aad joogta raac qofna ha ka heebeysanin because asaga ayaa kaaga daran wax kasta joog wadankan waxa lagu keenay ama joogta in wadanka sharciga raacdo oo aad good citizen noqotid so be good citizen baan ku yiraahdaa dadka haddana waa idin la yaadin karaa laakiin iyadoo intaas jirin ayaa jirta waxaa jirta dhalinyaro dhaqaale leh waxaa jirta dhalinyaro ilmahooda raba waxaa jirta dhalinyaro wada wanaagsan calaf kala dhammaaday ilmahoodna korsadaan raba hooyadana caawiyaan raba laakiin naagtii inta iska masayrtay oo muraayad qaldan iska dhex fiirisay ay wiilka ilmo u diiday
cayrinayso usa arki karinin ay maalmo dacwo maalmoba qaylo maalmoba ku dirow maalmoba taas naagaa guuguulaha waa walaalka shalayna waa u sheegay haddana waa kusoo sheegaya hadday naag xun kugu imaato horta ilaahay baan laga baryaa inuu ilaahay nagu soo aado qof nagu soo hagaajin laakiin hadday kugu soo aado naftaadii ku dhibaatayna fakataa ani wax ma qarinayo nafta ilaahay ku siiyey adoo ilmo ka daba ka wareegaysay waxaan arkay waxaan aan ogahay oo anigu goobjoon ka ahaa intaan aan siyaala ka shaqaynayay wiil wanaagsan oo gabar guuguula la ku aadiyey aad wadaad oo wanaagsanaa jiray kiiskaas horeeto ahaa laakiin waa jiray iskuulku ilmihii wuu u boholiyoobayaa inuu iskuulka aad u damayaa ilmihii yararka habay hooyadu waxay dhahday ma hadduu aabiin iskuulka ku yimaado booliiska say booliiska waa jeeb saa dadka waxay dhahan shaqo maxaa lagu wadadka culimadii masaajida maalmo waxay ku hayaan reed ilmahan stay away from qalbiga calooshiisii ayaa ilmihii ka joog weysa dadku waxay waa naagtu jecel yahay waxay ilmaha u daba socdaa it could be that jacaylka hadduu naftaada kugu yimaado jacaylka iska tuur mar haddii naftaada loo yimaado jacayl daaqadu ka baxay waa inaa ogaata rag iyo dumarba nafta idkamis naftaada iyo nafta ilmahaaga jacayl daaqadu ka baxa isba karkarsan iyo lindhanaan la isku daray jacayl waa kaa ba'aya matag markaad ku waalato shuban iyo matag kugu dhaco ayuu kaa ba'ayaa jacaylku so intaad naftaada wax gaari lahaayeen ilmahaagana wax gaari waayeen ama wiil ahoo ama gabar ahoowe horta jacaylka xagga naga dhiga iska soo dhiga iska daayo laakiin way jiraan wiilal wanaagsan aabayaal wanaagsan oo gabdhuhu ay dhibaan way jiraan gabdhahaas waxaan leeyahay marka isaga horta waxaan leeyahay walaal haddii hooyadu xumaato oo alla kuu ogyahay ilmihiina ay kugu dhibaataynayso adiguna aada dhibaato wadinin naftaa intay dhibaato soo gaari lahayd stay away ayaga insha allahu tacaala rabbi baa xaq sooraha kusoo doonan doonee halkaasa uga baxa isaga misaan shalab ku sheegay abaayo waxaan leeyahay dhegeyso cunuga aad aabihiis ka jirtay adiga cunug kuuma noqonayo waa inaad ogaataa cunuga aad aabihiis oo dhibaato aan wadin aad u diiday adiga aabba cunug kuuma noqonayo waa inaad ogaataa taa horta meel kusoo qoro kusoo xariiq cunug aabihiis oo raba aan safetigiisa aad ka baqaynin ilmaha safetigooda aad uga baqaynin waxba uusan aabbo uusan qabinin adiga asagaa kala tagteen naag buu kaa guursaday waad maseertay markaad maseertay ayaad wiilkii ilmihii ku dirtay ilaahay subxaana watacaala wuu kuu jeedaa saa u dhashay buu u dhalay xaqa adiguba ilaahay isagaba xaq buu siiyin kastoo xaqa laguu badiyey mas-uulnimadii uu ka saaray baad ka qaadaysaa hadduu asagu xataa iska qaada mas-uul saareen ladhim aabiis ilma haysto ilmaha aabba la-aanta ah maskaxdooda ma fiicna haddaad awood u leedahay ilmahaaga inay aabba la koraan u daysa aabbahooda haddaad awood u yeelatid aabbaha ilmahaagu inay aabbahay heli karaan aabbahoodu daa nagastiroorka ha deganaado meeluu ka arkala ha deganaado ha ku dirin ha u xumaynin ha dhibaataynin u daa aabbaha ilmaha wuu u fiican yahay waxaan ka hadlayaa aabbaha seefka ah laysla ogaadayaa aabbaha seefka ah laysla ogaado aabba aan seef ahayn baa la arkay hooyo wanaagsan oo aabba aan seef ahayn haysataa la arkay waa ka hadli doonaa idan experience kula waa idin sheega aniga barne muuse agekayga experiencegayga ka badan because nolosha mujtamaca dhexdiisa ayaan kusoo dhex jiray since aan yaraa 16 ilaa aan 16 years old jiray ayaan ilmo korinayay ayaan marriage marayay dhibaatadiisa ayaan mujtamaca kasoo dhex shaqaynayay ayaan qurba joogay meel kastoo ay tahayba so mujtamaca ayaan history fara badan aan leeyahay noloshayda ah so barna muuse ani inta aan jiro inta aan ogaha ka badan qofka mujtamac markuu dhex shaqeeyo wax badan buu marayaa marka noloshiisu ay gabaargadoonto wax badan buu marayaa waxaa laga yaabaa inaad aniga da-deedoo kala tahay balse aad marriage mar soo martay waxaa laga yaabaa in conference dhex mara wiil fiican mar soo guursatay waxaa laga yaabaa inaad hal cunug 2 cunug 3 cunug 4 cunug 6 oo isku aabba aad leedahay so aniga experience-gaan leema yeelan kartid because anigu waxaan leeyahay ilmo kala aabba anigu waxaan soo maray kala duwan anigu waxaan soo maray nolol adag anigu waxaan soo maray qurba badan anigu waxaan soo maray anoo yaraan dhibaato badan la kulmay anigu noloshayda dhan ba hasal iyo gabaargadoonaha welina waan noolahay welina waan dagaalamayaa welina sarfeefar baan ahay alxamdulillahi rabbil caalamiin anigu waxaan hooyo intaas oo 9 cunug
كرسي وهيسه وهالقول كويسة سي الحمد لله ما شاء الله أنا أقول الحمد لله عندها ما شاء الله لا ما هذا أسكال لكن ما هو وحدة الليلة صان واحد بدن بنوجه وحنا أنا هو يسقال صار مجتمع كده حشقين السوشيال هاي كده حشقين سيمانة وإني كيس كسي إسامري كان أنا هذا يقول هاي طبعا شرو إسامر أنا والله أنا نبني دي شيء أنا كان يقول هاي أنا إسامري أنا أيام تلاقيه متقال إيه صدرين 19 years إيها أم فاضر وهيسته dad aan u sheegay baa jirta isback 2013 dad aan u sheegay baa jirta markaan sheegayna ilaahay sharaf iyo wanaag iyo samada siiyo wiil aan aad u jecelahay walaalkay ahaa oo markaan waxyaalaha aan ugu noqon jiray markii uu subxaan ma alla dhigi jiray ayaa uu yiri waa arrin ku miyatay barnay ha ka hadline keeska darab garee wallahi waan darab garee but I seen my own eyes 19 years ha on father haysto 2013 kan soo arkay كيس لإيه كان يبغى هاني أنا أتجي جروجودا يوم القيامة أنا وقعية سو وحن أنا وحن كسر دالي هو لكن كنت هاي كذاته أنا كنت كذلت الحمد لله وحنت كان قيمة لكم قيمين مركز ما أدي كل مانيا إله خير للنوكل إله خير كنو سميري إله شرط نجاحي إله خير كنو سميري إله شرط نجاحي ساس وين أكون بعيسنا والله هي قيمة قاية وسودواد مرة بعد سدحات واد ما سنتين سودواد كقولها قبضة ولا شيء معاني ولا لك الميسودة حيري وح سأل قابة ولا سحيب تديارو هنا دين برني يكون يسون من أنا وان ليه فران المهي قاعد ليبان ليه one of my ex صاحب من هيبان ليه ويدا على إن الشركة حتى دمبوك جورسنا أنك كوجو علاديان because of صاحباتين نك إنك كوجو علاديان ويقول عادي because of صاحباتين صاحب أنا بكس المعنى قد حيا صاحب أنا يعرف كنيا كلام ماضي لك أولادنا ما دحيسو وإن دفعت هذا علف كلام ماضي أولاد مجرت أمر وادع قلنا واجبتها قف كان شلت أديك كل مرة إنه حلاش هو إذا كم صوّد بحنين قف كنا كلا جوينين وهو إذا كل شيء بها كلها ولا لك حتى وحلينا كلا دنيستان قف كان مارج سكوت معدين وتكلا دنيسان دو الله يقدر وكونتراكت هو إذا كلام ماضي كونتراكت ولايف وكونتراكت وين دوجاتها ماريجكو ولسوق يعني معنى يقولي هاي معنى هي سهدي اللي فهم واي أما قدرته أيضا ماتو وبربرية هدو بربرة محو بربري والسؤال بهن اللي سويديو إنه صبربرنا والسؤال بهن اللي فكره إنه صبربرنا ولو بهن يعني لما يكون لقى دجالهم هدو بربرنا وحلو بهن هاي إنه حل مليه لياد لكن هدو سحل هين إن لو جود بدر مال ملو بهن لو جود بدر مال لما بهن إن لقى هرو لو بهن ووحنا دحية لعن كرسون سو أنا جمال هذا صاحب والمك هذا اللي يسيدو وان ليه صاحب الماء قاعد عليه وصاحب كي إنك وراها وان فران إلى هذا النهاي وإيه ماذا والماء وإيه ماذا ونلا تشوجا وأباء لا نهاي أيان لا نهاي يسواد ويدو ولا نهاي وانا ما عندنا شرف يسمع بوليه أسكن السكر تدلو ويديو مارتي الحمد لله أي سين منت بيبل وكيدي وكفانا المي هوي إنه هوي الموضة هوي في عني ليه because هو وجاي واحد بيتك جد وضعك وقف كران so قفك هذا إسفهم كرتي هذا إسفهم وإذا هذه أسجع نرشي لحدينا هي حرير لحد دوقوا أي حرير كلمة ينوقوا معهم ترى نص الماء حرير كذا دوقوا ولا شيء معاني هنا دبعتين ويلك ولا الكلمة إلهي كذا حسي ودنا المهاجة ودنا نفط هذا haddii aad ilmahaas aabahood aad ku dirto uu xumaado oo ilmo aabahood gooyaan oo ku xumaadaan adii inay isku wanaajinaynin meel ku qoro macaan badan waa inaad gabar walba fikirtaa waan aragnay gabdho wiilashii dhibaataynaya wiilasha Soomaaliyeed ma wada xumaa as always aan dhahaa ragga Soomaaliyeed rag wada xun ma ahan ragga Soomaaliyeed rag baa ku jira wanaagsan kuwa ilmahooda jecel oo dhaqaniya ku jira تاسي وماشية سو المهاجة نفتاده وجنح إلهي كأبورتنا وجبل أبوهودها حمينين هدوس أسوق حمينين هذا كلا تكتان أو سوق حمينين أبها حمينين وأنا رجني المهوية كحمانين هوي أبيس 24 second without reason المهود وحمانيا المعقدة بكاقاليان هو يحن تكوف كو أركيان إلهي سبحانه وتعالى دي بارك على مدى إلى دلمية كجختاي
ilaahay baari kaagama dhigayo ilay dulmiyaad ku jirtaay haddaad dulmi ku jirtood walaalka aad ilaahay uga baqinin oo shalad isu aragteen waana kala tagteen haddaad jecleen dee calafkaa kala dhammaaday aadan saabuuntaada iska cabin oo aadan oranayn bismillah cud billahi min shaytaan rajiim allah keenay oo aadan samrinin dee walaal ilmihiyaa kaa xumaanaya ilmihiyaa kaa xumaanaya asagiina waxaa laga yaabaa access uu ilmaha ugu yimaado nuusahayn one of my experience waxaan arkay alla barin maxay ogtahay alla barin waxay ogtahay haddaa ogtihiin adduun meelaa ku xiri lahaydeen barin muuse waxay ogtahay haddaa ogaan lahaydeen aniga wax badana oga qiso ayaa dhacday aabe iyo hooya isku kacay aniga waan garanayaa familkayga iyo ehelkayga waay ma fahanteen magaalo kaleeto ayaan ka gurnay magaalo kale aan degnay wiilash ilmihii waa la rorooray hooyo aabbaa dagaalkooda waa batay hooyo aabba marka dagaalkoodii batay ilmuhu waa ka faa'iidaysan hooyo aabba marka dagaalkooda bato waad ogtiin adinka bal idinkagama sheekeynayo waa ka faa'iidaysanayaan waaba rabaanba in la islaayo la isku sii jeedo in ay lagu soo jeesan in iskuulkiisa tahay la oranin inaan maartay hooyo hoos loo fiirin inay kombiyuutarada waxooda aan la arkinin inay sakareedyadooda aan loo dib loo fiirin way rabaan ilmuhu aad u jecel yihiin habda midka liicaya ku yaacan ay garab siiyaan habda mid bay garab siiyaan si sheekadu ilmaha dhan ma ahan waa ilmaha oo xoogaa qalqaaliga ama dhibka badan leh anyway odagii dhib baa ku dhacay waa ka fakaday reerkii markuu ka fakaday waxaa jiray wiil yara dhib badan oo ilmahan yara cirka kusoo baxay ah allah u naxariisto isagoo weyn baa hadda mar dhow baa la dilay waa ilmahay qaraabadooda ilmahay walaalkiis waa waxaa dhacday in 8 sano 9 sano ka hor uu dambi galay dambi markuu galay ilaahay u naxariisto ayuu odagii cararay horta intuu magaalada joogay ayuu jaanis waayey ilmaha uu kula sheekaysto ama uu ku ogaado wiilkaas markasta hadduu codkay maqlo u ogaan doonaa aad iyo aad ilaahay waxaan markhaanti uga ahay inuu aabbaas yaalkaas u jeclaa ilaahay waxaan markhaanti uga ahay inuu cunugaas aad uga welweli jiray finalkii dhintay markuu jaanis uu waay horta ilmaha uu kula sheekaysto ku dhexgalo waa waayay markuu jaanis waayey waa isaga haajiray ka haajira maqli jirta magaalada intaan saan ku ahaan lahaa waa ka cararayaa wuu ka cararay markuu ka cararay ayaa maaragtay adigu waqti dibacna cunuga qalad galay waa la xiray waa loo soo sheegay hebel waxaa la yidhi cunugaagii qalad u galay waan xiran yahay wuu cararay magaaluu ka cararay magaaladu jooguu tegay hooyadii cunugaas dhashay ani ma ogeyn markay hadlaysay laakiin sida dhacday waxay tahay hooyadii cunugaas dhashay waxay tiri qof aan aniga ahayn iyo walaashiis hablaayo ma arki karo cunuga aabbihii diyaaradda 3 saac kusoo jiray yimaaday waa looga dhaartay sorry baa lagu dhaha ma arki karti cunugan والله وين حسوستا فرسترس ومركيسو دبتودي sidoo uga walwalay waxa laga yaabi lahaa waqtigaas hadii chance uu heli lahaa oo la oran lahaa war adigu xarta ku sameey iga kaxi cunugan wajigayga dhaafsi saartid yeele inuu handal gareyn lahaa ila rag baa handal gareyn kare hadii ay markaas ilaahay ku solonsiin lahaa dhihi lahayd walaalow aniga cunuga ma hayn karo uu igu weynaado wuuna ay dhibay adiga aabihiisa adaa ilaahay ku saaray bal ani adu wixii noo kala dhaano kala adu cunugan si yeel hadii oran lahayd waxa laga yaabi lahaa oo ani isleeyahay oo asaga uu jeclaan lahaa in asaga la siiyo oo wadanka ka haysto uu badbaadsado ma badbaadi doono dhihi jiray way dhacday 25 sano asamise 24 ama 25 asagoo jiro ayuu dhintay ayaa la dilay so sad so waxaan u keenay qisadaas saasoo kala dhici karta wayna dhacdaa every day so ilmaha especially wiilasha ama gabadha ha ahaadeen
haddaad adiga istiraad xooga haddaad walaalka saaxiib la tahay haddaad wax fahmi wado ugu yeeraysaa qabsaad leeda cunugaaga walaal macnahay stress aan hay guridin laakiin haddii aad cayrisay haddii inuu arkaad u diiday haddii hadduu soo agmar aad xirtay haddaa hoogis u dhuxulaysay dee anaa didiyo dalka keriya xaggee daarad u doonaaba dil sheegi jiraa dhacays sayid ku dhahay anaa didiya dalka keriye markuu hadhow ku dhibo yaa xagga u doonaysaa soo taas waxaa walaasha inaan dhaho wanaaji xiriirka dhexdiina hadduu adiga isaga kala dhammaataan isaga iyo ilmuhu ma kala dhammaanin sidaan shalayna u dhahay wiilasha haddaad gabadha kala dhammaataan nin raga ma xumeeyo caruurtiisa hooyada nin raga ma xumeeyo caruurtiisa hooyado sidaan shala u ila ayaan kana hadda aan ku leeyahay hooyo fiicani ma xumayso caruurteeda aabahood haddii uusan asagu ku xumaanin halkaas aan uga baxayn taas koris male maxaa la yidhi geed qodax koris male what about aabaha guulguulaha ah saaxiib horta sidaan always aan sheego save your life waxaa ilmo seef gareeya hooyada nafteeda seef garaysa save your marriage also ku dadaal sidri maxamed aad iyo aad maanta doorasho ku jeeda inaa ku jirto oo ku salaamaya sidri abay hooyada nafteeda seef garaysa ayaa ilmo seef garaysa marriage-kan la seef garayana si aysa ilmo u dhuminina oo u xumaanina oo is conflictigaas kale u dhicinina oo aysa aabba u waayinina oo is hooyada codad uga qaadin oo ilmo si sharaf leh u koraana waa barmood gareynayaa aad baan anigu uga sheegay reerka burburkiisa aad baan uga soo horjeedaa reerka in la burburin ayaan jecelahay aniga wixii gacantaada adiga gacanta dalaaqdu gacantaada kuma jirto gabadhaan la hadlaya wiilasha waa ka baxay laakiin waxaa gacantaada ku jirta sulxa inaad sulx samaysid oo aad dadaashid si kastoo aad oo aadan waxyaalo aan necessary ah ninkii naagu guursaday iyo halkaanu ka soo dhacay iyo muraayad qaldan istusisay iyo aadan gurigaaga ku burburin waa muhiim qalada doora kaaga dhacay mar labaad yuu kaa dhicin qalada doora kaaga dhacay mar labaad yuu kaa dhicin ilmahaaga u danee reerka hay laakiin naftaadana seef garee haddii waxaan arkay sooma horta mahmaha qaldanay mahmahda aan idiin sheegay mahmahda way qaldan tahay mahmah qaldan ayay mahmahdaa mahmahdaas qaldan waxay tahay hooyo aan aan jirkeeda usoo qoyin cunug ma korso that's not true hooyo ooynaysa cunug ma korsato hooyo murugaysa cunug ma korin karto hooyo fakarsa cunug ma korin karto hooyo aan habbahayn cunug ma korin karto waa in maskaxdiina intaa u sheegtaan soomaaliyay qaladka aad ku dawta barjoojiya hooyo aan faraxsanayn waxba ma qaban karto hooyo aan ooyin oo maxaa kaa oysiinay shalaad walaalka isku timaadeen farxada isugu timaadeen you don't have to inaad kareegaraysid you don't have to inaad ooydid wanaaga idinka dhexee wanaagaas dhexdiina aad wadaysaan haddii wanaagu socon waayana si wanaagsan ma wada korsanaysaan laakiin sheekada la yidhaahdo hooyo aan ooyinin ilmo ma korsan ani waan kasoo horjeedaa maskaxdaada markay isku dhex daadato oo saad u fakaraysa aad madoobaatid oo labada goon ka madoobaatid oo labadina isku guraan oo noloshaada aad nacdid hadda waan arkay ogaada aniga waxaan arkin kama hadlo haddii culays baleeshar ku fuushan yahay waxba ma qabsan kartid maskaxda oo hagaagsan ayaa wax laga qabsadaa